dhunkashadu waa qayb aad u muhiim ah oo ka mid ah nolosha waana furaha koowaad ee macaanka raaxada. haddii laga tagana waxaa hubaal ah in noloshaas aad dhisaysa aysan yeelanaynin ama dhadhanku ka duulayo. si aad iskaga ilaaliso qaladaadka ka imaada aqoon la-aantaada dhunkashada islamarkaana aad u dhistid xiriir taya leh, waxaan kuu soo gudbinaynaa tallaabooyinka muhiimka ah ee ay tahay in aad qaado si aad ugu guulaysato dhunkasho macaan, annaga oo ku xijin doona qaababka loo dhunkado lamaanahaaga adigoon waalayn ama aan qaribaad geysan. 5 ilaa 6 qodob oo muhiim ah ayaan soo bandhigaynaa, waxaana laga rabaa in aad ka tusaale qaadato. mahadsanid. 1. tusi in aad xiisaynaysid. waxaad soo saari kartaa calaamado muujinaya in aad rabtid dhunkasho adigoon u soo dhaqaaqin aad samaynaysid ama aanba afka ka oran. dhugo ama eeg si degan qofka kale bishimihiisa ama dibnihiisa. dibnahaaga ama bishimahaaga ha xirin, fur kana dhig kuwa jilicsan, hana wada furin. si dabicsan u kala fur oo aad dibintaada hoose gaari kartid afkaaga. dhaqdhaqaaji dibnahana ismarmari si aad ugu kaalmaysid jiljileecin. 2. jebi waxa idiin dhexeeya. haddaad isleedahay waxaad tahay geesi, hal dhunkasho oo gacanta ah iyo wixii la mid ah ayaa jebin kara daboolka. haddii aad gabar dhunkanaysid gacanteeda, soo qaad si tartiib ah dhanka afkaaga ugu soo aadig. si xariifnimo ah dibnahaaga u sar dhanka dambe ee gacanteeda. 3 ilaa 4 sakan ayaa kugu filan inta aadan ka qaadin. haddaad wiil dhunkanaysid, kusoo foorarso oo dhabanka ka dhunka. dibnahaaga ha ahaadaano kuwa dabicsan, ha u dhaqmin sidii adoo dhunkanaya caruurtaada ama waalidka. u badi dhanka u dhow dibnihiisa. 3. u bedel habkaaga mid rabitaan iyo kacsanaani ku jirto. si lamaanahaaga naftaada oo idil iskuna bedel daacad dhammaystiran oo doonaysa in wax loo qabto. si wanaagsan u dheh in aad rabtid baashi. codka hoos u dhig, indhahaagana xir. tani keli ah ma keenaysa in aad dareen qoto dheer aad xambaarsan tahay, xitaa waxay kicinaysaa dareenka qofka kale. wuxuu isku dayayaa in uu kuu soo dhowaado si uu kuu maqlo. si aad ah u dhaqan, xoogana saar waxyaalaha hoose sida adoo dhahayo waad qurxan tahay, indhahaaga waa isoo jiiteen, qosolkaaga waan ka helaa, maba aaminsana in aan ku haysto, ma runba ma ku haystaa. 4. hadday dhammaan kuu shaqayn waayaan, si dadban u weydii waxaan ka jeclaan lahaa ma jirto dhunkashadaada gacaaliso. soo dhawow, waan ku dareemayaa idhunko ugu horeyn iyo wixii la mid ah. 5. dhunkashada ku bilow, wax waqti ah ha ku dhumin. wax kale mar allaala iyo markaad dareento lamaanahaaga in uu u tafaxeeta baashaal iyo baashi. asxaabta mar walba ha u maleynina ereyada aan idiin soo gudbinayna in ay xambaarsan yihiin xumaan ama ceeb.